daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aan kaga waramayno wadada cad oo isku xidha degmooyinka Hargeysa, Salaxley, Awaare. bismillah alxamdulillah magacaygu waa Cabdiraxmaan Diiriye Ismaaciil runtii wadadan markaan ka sheekeeyo wadadan waxa weeye wado runtii istiraatiijiyad oo isku xidha Hargeysa oo Soomaaliland marka laga soo bilaabo Hargeysa Salaxley ina guuxa marka laga bilaabo Soomaalida kililka shanaadna waxay martaa dhul fara badan halka wax ka gashaa wadanka la yiraahdo Soomaaliya runtii waxa weeye wado istiraatiijiyad oo xoolaha ugu badan ee dalka soo gala waxay soo maraan wadadan runtii waxa ka soo hoydo waxyaabo badan oo Soomaaliland runtii waa muxuu ahaa ila dhaqaale u sameyn kara haraga ka yimaada suuqa ka yimaada xoolaha ka yimaada waa isku xidhaa saddexda wadan ee ay dadka Soomaalida ku wada nool yihiin oo dadka Soomaalida walaalaha ah runtii waxa weeyaan wadada waxa sameeyay oo bilaabay dadka reer Soomaaliland gaar ahaan dadka deegaankan u dhashay oo runtii aad u daneynayeen wadadani shaqayso si loo helo isku xidhka wadanka iyo ila dhaqaalana ay soo kordhiso taa way ku guuleysteen runtii rag iyo dumar fadhiga looga kacay markii la bilaabay muddo imika 7 sanadood ay socotay marba heer bay soo martay marxalado kala duwan bay soo martay dadkii runtii waxa ku dhacay abaaro iyo muxuu ahaa xoolo dhaqatadii oo xoolihii ka jabeen haddana qof kasta wuxuu isu taagay inuu wadadan qayb ka qaato maanta meel wanaagsan bay maraysaa inay guuxa ilaa Hargeysa isku xidhan tahay waxaan u mahadnaqayaa dadkii runtii isu taagay wadada halka gaarsiiyay dawladda lafteedu kama marnayno kulli gacan badan way ka geysatay siiba dawladii kulmiye ee kala dambeysay waan u mahadnaqayaa dawladda kulmiyana runtii ilaa tii hore tan dambaba waxaan oran lahaa Soomaalida degan Somaliland kililka shanaad kuwa degan Soomaalida kuwa Soomaaliya deganba waa wado runtii lafdhabar ah dadka Soomaaliyeed marka xaqada doonayso marka waxaan oran lahaa qof kasta oo Soomaali meel joogaba wadadana ka qayb qaato hana isu taago waa waxyaabaha akhriiftiinka bana lagu guuleysanayo muxuu qofka horumarka u keenayo akhriisna wanaagsan waa sadaqa tijaariya waxa weeyaan waxaan garanayaa wadadan markaan marayno iyadoo aan sameysnayn gaariga halka ka soo qaada rakaabka uu kolba dhinac u dhaco dadku ku dhaawacmaan maanta ilaa Hargeysa alxamdulillah si fiican baan u maraynaa ilaahay baan mahadle dadkii ka qayb qaatayna aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay inta madowga la saaray inta ka dhimanna aynu isu taagna sidii hore oo kale waan idin mahadnaqayaa dhammaan qof kasta oo muxuu ahaa inuu muxuu ahaa daneynaya in akhriiftiinkaba uu helo muxuu ahaa sadaqo ama wanaag ama horumar wadadana ka qayb qaato runtii waxa weeyaan reer Soomaaliland oo qura ama reer Salaxley qura ma aha muxuu ahaa wadadani dan gaara laakiin waxay dan gaar u tahay ilaa inta Soomaalidu joogto oo Soomaalida Somaliland Soomaalida kililka shanaad Soomaalida Soomaaliya Soomaalida Kenya markay ku dirxataa marka waxa runtii waxaan oran lahaa qof kasta oo magac Soomaali ama magaca qaatay horta isu taago dadka kale waxaan ka barayaa dadaygu inay naga qayb qaataan daawadayaal barbarkayga waxa taagan injineer Good halkan aan ku suganayna waa wadadii cadayd meel u dhaxaysa magaalo xuduudeedka ina guuxa iyo degmada xarunta degmada Salaxley marka injineerkan ku soo dhaweynaya injineer nooga warbixi bal wadadan marxaladaha ay soo martay iyo imika halkay marayso bismillaahir rahmaanir rahiim wadana arkasan dadaal dheer kadib taafar badan oo dadka deegaanka isku geeyeen tamar iyo xoog iyo energy hayeenba ilaahay fadligii imika waxay taagan tahay magaalada ina guuxa ee xadka sida daraadeed imika halkan taagan waa ina guuxa waxa u dhaxaysa Salaxley waa 12 kilomitir marka ilaa Hargeysa la isku darana waxa weeyaan 40 kilomitir anuguna waxaan ku qornay injineer magacayguna waa Axmed Maxamed Yuusuf bismillaahir rahmaanir rahiim halkan aanu joognaa waa wadadii cadayd oo isku xidhaysa Salaxley Hargeysa ina guuxa Awaare Shaygoosh Nagado iyo deegaano badan oo kala kamid ah Soomaalida waxay gaadhaa ugu dambeynta beledweyn wadada maanta waxay maraysaa meel gabagaba ah xagga Somaliland marka laga eego waxay taagan tahay xuduud beenaadka ina guuxa ay wadadu taagan tahay waxaanay ka soo bilaabantay Hargeysa inta waxa la tacaalay dadka deegaanka imika se waxa la rajaynayaa
inay xukuumadda doorkeeda ka qaadato sida ballan qaaday way ku mahadsan yihiin waanu ku soo dhaweynaynaa inay kaalintooda ka qaataan marka waxaan u sheegayaa dadweynaha jecel horumarka iyo wanaagga wadada marka wax kale oo dhan la iska daayo iska daa dadkii duunyadii iyo doogii iyo deegaantii ayaa siigadii iyo dabayshii ka nasatay oo dhirta iyo xoolaha hareeraha wadada daaqaya ayaa dhogortooda bilic yeelatay awal horena marka gaadhigu mare uu siigo dhirta huuyo xataa xooluhu may daaqi kari jirin marka waxaan leeyahay cid kastoo ka qayb qaadatay ugu yaraan isbeddelka halkaas ka dareemaysaa marka waxaan rajaynayaa qof kaste oo muuqaalkaygana soo gaari doono inuu wadada kaalin weyn oo wax ku ool ah uu ka qaadan doono in yarina ay harsan tahay waxaan leenahay in yar baa ka hadhee hintiya daawadayaal intaa waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aynu kaga warramaynay wadada cad oo isku xidha magaalooyinka Hargeysa Awaare iyo degmada Salaxley wadadaasu iminka gabagabay ku siqaysaa sida aynu ku waraysiga aynu kaga soo qaadnay dhalinyarada odayaasha iyo injineeradii dhisayayba intaan mar dambe barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono anigoo Yuusuf Cabdi Xoday